musharax cabdiraxmaan maxamuud maxamed gaari jiid oo ka mid ah musharaxiinta xisbiga ucud uga tartamaya doorashada golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo lambarka codayntiisuna yahay 101 ayaa saaka mid ka mid ah xafiisyadiisa magaalada Ceerigaabo ku soo bandhigay cududa taageerayaashiisa magaalada Ceerigaabo kuwaas oo ku labisnaa calanka xisbiga ucud sawirada iyo lambarka codaynta musharaxa ee ah 101 waxaana goobjoog ka ahaa soo bandhigida cududa taageere ee musharaxaasi xildhibaan Reyte oo ka tirsan golaha wakiilada ee haatan waqtigoodu gabaabsiga yahay madax dhaqameed waayeel haween dhalinyaro mas'uuliyiinta xisbiga ucud ee gobolka iyo taageerayaal tiro badan oo ku dhawaaqayay erayo ay ku dhiiri gelinayaan musharaxooda aad iyo aad baan ugu faraxnay runtii taageerada xooggan ee aad muujiseen waxay noqotay mid qalbigayaga soo jiidata sidaa iyo si ka wanaagsan baanu doonaynaa haddii aan la yidhaahdo inaynu cabdi maalmahan inoo haray aynu u dhoolla tusanno cabdiraxmaan maxamuud maxamed jaamac taageere soo dhowow dadkii waad aragtaa bulshadu aday kuu timi codkay diyaar kuula tahay halkan aannu kugu soo dhowaynaynaa farta iyo codka iyo kaadhkaba diyaar baannu kula nahay qaarsow sidaa ma aha maraakiib in loo soo degsiiyo maydhin laga dhoofo muran looma baahna ee haddii magac la doonaayo ku mintida mas-uuliyaddu waa madax la tuugaahayow muraadkiisa si muhani weeyaane maasha allah cabdi baan u dabaaldegaynaa cabdi aad iyo aad baan ugu dabaaldegaynaa cabdi maxamed jaamac waxaan leenahay guulayso annaga horeba xildhibaan buu noogu ahaa maxay aad baan ugu faraxsannahay guulayso baan leeyahay codka iyo gacanta iyo xoogga iyo murqaba inta waan u haynaa waxaan taageeraynaa cabdiraxmaan maxamuud maxamed gaari jiid waxaanu leenahay inanka daada yar waa inaynu doorannaa gobolkeenna isagaa uu inoo hogaamin karaa cabdi gaari jiid iyo Ceerigaabo lasma barayo was yaqaaneen Ceerigaabo markaa soo galo cabdima joogaa baan ugu horreysay dadka marka waxaan qabaa awalba xildhibaan buu iska ahaa diran oo dooran hadeerna haddaa xilka ugu dartaan wixii iyo wax ka badan buu idin qabanayaa waxaan jecelahay maalinta codbixinta sidaa hadda loogu soo baxay iyo si ka badan in loogu soo baxo inaan qof habsaamin inaan qof ilaabin inaan qof dhoofin inaan qof xanuunsan waxaanu rajaynaynaa guul baanu idin rajaynayna maxamuud maxamed jaamac cabdi gaari jiid weeye taageerayaashaasu sida hore loo sheegay reer qudha maaha meel walba waa taagan yihiin annana waa annagan la joognaa waxaannu leenahay oo aad iyo aad ugu ammaanaynaa oo annaga noo sharafa mar haddii xisbigii cududda intaa leegu cabdi ku soo biiriyey waxay la tahay ucud waa guulaysatay soo maaha sidaa quruxda badan ee xafladdiisu ay u muuqato ayaan muxuu ahay ilaahay uga baryayaa in codkiisuna u muuqdo idinkana waxaan idinka codsanayaa xildhibaanka dhaartu u harsan tahay haddana wax kale u hadhay ma garanayo dhaartiiba u harsan inaad maalinta codka sidaa taageeradiinna iyo cududdiinna u muujiseen codkiinnana u muujisaan taageerayaasha xusbiga cabdiraxmaan maxamuud maxamed insha allah cabdiraxmaan wuu soo baxayaa waxa weeye maalinta maxay tahay 31 May maalintaas 8 aroornimada wuxuu taagan yahay finalka waxaan idin leeyahay idinkuna haween ahaan iyo dhalinyaro ahaan innaga codayna maalinta cabdiraxmaan socodkiisa siin maysaan waa inoo ballan waxaan u mahadnaqayaa taageerayaasha cabdi maxamed jaamac halkan taageeraya ee isugu soo baxay ee sharafta leh ee karaamada leh ee quruxda leh ee faraha badan ee runtii sida muggiyo miisaanka leh ugu soo baxay goobtan aynu ku sugannahay cabdi waa nin qaali ah waa nin aad iyo aad u qiimo badan waa nin aad iyo aad u sharaf badan waa nin aad iyo aad dadka ugu tamarruca waxaannu leenahay xilkaa ilaahay kugu guuleeyo cabdi nin beel u sharxan oo reer u sharxan maaha laakiin reerkan sheegay wuu ka soo jeedaa waa nin qaran waa nin gobol musharax cabdiraxmaan gaari jiid oo gabagabadii la hadlay taageerayaashiisa isugu soo baxay dabaaldega maalinta koowaad ee ololaha xisbiga ucid ayaa u mahad celiyey wuxuuna ka codsaday inay codkooda ku hubsadaan lambarka codaynta ee 101 marka la gaadho
maalinta doorashada ee 31 May. maanta cudud ballaadhan oo wanaagsan ayaa noo fidiseen runtii aad baan mar labaad iyo mar saddexaad idinka mahadnaqayaa. nambarkaygu waa 101 codka ayaan idinka doonayaa dhammaan inta halka isugu timi iyo inta kale dunida daafaheeda joogtaba. waxaan leeyahay 31 May iyo nambarka 101 ayaan cod idinkaga doonayaa. runtii nin dhallinyaro baan ahay, hore ayaa loo soo sheegay. waxaan saaxiib dhow la noqonayaa hooyooyinka iyo haweenka iyo dhallinyarada iyo dadka tabaalaysan. horena waan ugu ahaa. waxaan mar labaad si gaara ugu mahadnaqayaa xildhibaanka Ibraahim Jaamac Reyte oo ka tirsanaa xisbiga kulmiye, iminkana anigoo Cabdiraxmaana igu taageersan xisbiga UCID inuu igu dhiso ayaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqayaa. dhammaantiin maalinta codka ayay noo ahaanaysaa. musharax Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Gaari Jiid oo ka mid ah dhalinyarada xisbiga UCID uga tartamaya doorashada golaha deegaanka degmada Ceerigaabo ayaa saaka ka mid ahaa musharaxiintii ugu taageerada badnayd ee gudaha magaalada Ceerigaabo ku soo bandhiga cududooda taageere. Cabdiraxmaan Ilsar, Saab TV, Ceerigaabo.